بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalyaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan casharkeena cuntada caafimaadka ee aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan casharkan soo jeedaan waa casharkii afaraad maanta waxaan uga hadlayaa wax la yiraahdo electrolytes waxaan rabaa kelmad aan rabo in aad qabataan maskaxdiina aad ku qabataan mar walba aad cuntada cunaysaan ama Ramadaan ka ahaado markii laga baxa ahaade in aad cashar ahaan aad u fahantaan barara electrolytes maxaa laga wadaa laba su'aal baan ka jawaabayno waa electrolytes maxaa laga wadaa iyo cuntooyinka electrolytes ka aan ka helahay maxay tahay waa electrolytes waxa waaye chemical jirkaaga ku jiro Ilaahay ayaa u sameeyay subhanahu wa ta'ala chemicalkaas waxa waaye wuxuu u yeelaa jirkaaga iyo murqahaaga iyo lafahaaga iyo organiskaaga oo dhan wuxuu u yeelaa in ay koronto yeeshaan in ay yani shaqeeyaan oo yani ay dhaqdhaqaaqaan marka electrolytes waxa waaye hadii aad leedahay electrolyte fiican waa qof koronto la tahay qof dhaqdhaqaaq fiican sameyn kara qof wax qabsan kara qof energy leh qof wax badan qabsan kara tahay hadii electrolytes aadan lahayn jirkaaga uu mataqaana uu san lahayna waxa noqonaysa qof caajis loo meel iska fadhiyo hurdaaye oo waxba aan qabsan karin marka electrolytes kelmadaas macnaheedu saas ayaa laga wadaa marka meelaha electrolytes ku jiraan ama korontada jirkaaga ku jirto waxa waaye murqaha oo kale iyo meelaha maskaxdaada oo kale neuronska waxyaalaha la yiraahdo maskaxdaada ku jirto maskaxdaada yani isku gudbiso informationka neuronska la yiraahdaa iyo murqaha iyo waxa waaye meelahaas oo dhan waxay ku shaqeeyaan koronto ay ku shaqeeyaan korontadaasna waxa waaye cuntooyinka ayaa laga helaa waan sheegi doonaa cuntooyinka laga helo hadii electrolyteska ama korontada jirkaaga ay ka maqan tahay xanuuno badan ayaa ku imaan kara laakiin waxa ugu weyn ku imaan kara waxa waa inaad daashid dehydration jirkaaga oo ka baxo biyo la'aan ay kugu dhacdo kadibna aad daashid biyo la'aanta dhibka ay leedahay casharadii hore ayaan uga soo sheekeynay cuntooyinka aad ku soo jeedinayo afurka inaad cuntid ama suxuurta aad cuntid ama gabi ahaanba inaad cuntid waxa kamid ah cuntooyinka iyo qudaarta ah sida spinachka oo kale sida mataqaana digirta oo kale sida mataqaana digirta yaroo cagaaran lentilska la yiraahdo yani waxa ayaa kamid ah carrotka ayaa kamid ah ama karootada waxa kamid ah mataqaana cuntooyinka fruitka hadaan dhahno cuntooyinka qaraha oo kale orange ayaa kamid ah peach fruit la yiraahdo oo guduudan yahay wana dhaadheer yahay xoogaa xidid baa ku jira dhulka laga soo gooyaa ayaa kamid ah waxa kale oo kamid ah aad looga helaa biyaha qumbaha waxa lagu tilmaamaa electrolyte badan in ay leeyihiin hadii aad cabtidna all of the sudden ama mataqaana isla judhiiba isla markiiba aad helaysid mataqaana koronto fiican oo Ilaahay jirkaaga u gelinayo aad ku shaqeysatid marka qudaarta inaad xoog saartid cuntooyinka dhulka ka soo baxa inaad xoog saartid fruitka inaad xoog saartid waxyaalahaas oo dhan waxay jirkaaga siinayaan electrolytes ama korontada u baahnaa in uu ku shaqeeyo waxyaalaha raba inaad ka tagto waxa kamid ah cuntooyinka la soo bacrimiyay ee gacanta badan soo maray ee mataqaan sida sambuuska burka waxyaalaha badan oo dabka wax badan ku soo jiray oo nafaqadii iyo vitamiinkii wixii dhan laga mataqaana laga soo miiray waxyaalaha wax faa'iido ay ku keenayaan male inkastoo yani aad jeceshahay ay macaan yihiin aad mataqaana aad dhaafi karin haddana wax faa'iido oo ay ku keenayaan jirkaaga ma jiro cuntooyinka kale aad ka inaad ka tagtid aan kula talinayo waxa kamid ah cuntooyinka fried ee saliidda lagu kariyay sida sambuuska yani wax walba saliid soo maray oo wax badan saliid ay ku jirto waliba markaad gaajaysan tahay kuma fiicna sababtoo ah yani waxa waaye sugar level-kaaga jirkaaga kor ay keenayaan cholesterol baa laga yaabaa in isla markiiba inay kugu dhaco waxyaalo badan oo aan u fiicneen maskaxdaada waxay keenayaan inay marna kor u aado marna hoos u dhacdo hypertension in aad mataqaana kugu imaato ama daal fara badan oo marna aad daalaysid marna energy helaysid waxyaalahaas oo dhan cuntooyinka saliidda lagu sameeyay ayaa laga helaa sidoo kale waxyaalaha aan rabo inaad ka tagto waxaa kamid ah yani cuntooyinka biyaha qasan oo liquid foodska ama liquid drinkska ama biyaha la soo qasay oo dhan waxay rabaan ha ahaadaan inaad iska dhaaftaa fiican biyaha caadiga cad ku dadaal sababtoo ah iyaga electrolytes leh dehydrationkana way ka hor yimaadaan waan ka soo hadalnay biyaha cad iyo faa'iidadooda casharkeena afraad maanta intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyo waxaan jeclaa casharka inaad la wadaagtaan dadka saaxiibadiina dadka aad taqaanaan social media dadka walaalihiina casharka ku xigta iska arki doona waxaan ka tagay salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh